سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بعد برلب افكس waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kooban muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa waxay tahay waa qoraal yar oo saakay bahda birlab افكس ay nala wadaagtay taasoo ahayd inta aadan trade guda galin waxyaalaha lagaga baahan yahay inaad qabatid qof walba maanta shaqo haya ama howl qabsanayo waxaan ogsoonahay inuu leeyahay jadwal dukaanlaha maanta ama goobta ganacsiga aad tagtid waxa yaalo buugaag Soomaa buugana waxa ku qoran dadka deynta lagu leeyahay buugan kale waxa ku qoran dadka asiga maanta deynta ku leh sababtoo asiga meelba wax ka soo qaataa Soomaa afirkiisa waxa lagu leeyahay dukaanlaha ama ninka ganacsatada buugasi suwax walba waa la fiiriyaa buugta asiga dadka deynta ku leeyahay meeqa soo xarootay meeqa weli waxa lagu leeyahay su'aal dhowr ah weydiiyaa Soomaa adigu marka inta aadan hawsha galinba waxa laga baahan yahay waxay tahay inaad leedahay qoraallo adiga ku ah hordhac ku hagaya qodobo saaka waxaan soo dirnay waxay tahay qodobo aad u kooban qodobadaasi ha ku ahaadaan mid qoraal ay ku nodgoreysan yihiin ama buug ha ku qornaadaan ama warqad yar oo journal yar ha ku qornaadaan hortaada aad ka arkayso computer ha ku daabicin ama laptop ha ku shubanin mobilka ha ku shubanin waa qoraal inaad ka dhigata laga raba gacantaada inaad ku qorto laga raba waxaad gacantaada ku qorto ayaa ka wanaagsan waxaad computer loo dul tagto ama mobile aad ka daawato sababtoo mobilku waa ku mashquuli karaa computerkana hoolaad ka wadataa ama laptop hool baad ka haysataa laakiin qoraalkani halkan ay ku yaala qodob walba aad eegtid tigaad saaraysaa tusaale qodobku ugu horeeya muxuu ahaa qodobku ugu horeeya wuxuu ahaa haddii aad aragto warar waaweyn ay jiraan tigsar waxaad tiraahdaa war hebel saacadaas iyo saacadaas ayuu soo baxayaa waqtigaasi ayuu soo bixi doonaa kadib ka soo gudub waxaad imaadaa qodobka labaad muxuu ahaa gudagal taxliilinta gudagal oo waxaad taxliilinaysaa shariidadaas leedahay maanta fursad ayaa kaaga muuqata kadib calaamadaysa qodobka saddexaad muxuu ahaa waa inaad calaamadaysataa hadduu train view ku iibsan yahay shariidada aad qaadanayso ama isleedahay fursad baa ka soo dhow calaamada gooniha u sameeyso kadib iyaga si kala xulnaa marka qodobka la afraad muxuu ahaa iyaga si kala xulo tireed waxa arkaysaa qodobadii hal qodob ama laba qodob ka dhiman yihiin oo shuruucdaadii tireed waxa arkaysaa weli afar qodob amal ay ku harsan tahay macnaha tireediya soo dhow midna ma soo dhawa si kala xulo marka qodobada aan soo dhigay adiga hore u aragteen waxa laga rabaa waxay tahay inta aadan howl galin ka hor inaad isku soo tashatid maanta ninka beeraleyda ah markuu beertiisa aadayo hadduu yiraahdo ka waran waxaan soo ilaa ambadii beerta lagu falay ama maqarka ama faaski ama masaarti geedaha lagu jaraan soo ilaa hadduu yiraahdo ninkaas nin howl u socdo miya amay adigana hawshaada waxa ku ah gacan qabsigaaga waxa ku ah qoraalkan qodob walba dul martana tigsar qodobkaasi waan soo dhaafay kadib qodobada kale u gudub isbar marka ilaad 1 week xataa I think maalmaha ugu horeeyana ku adkaanayso laakiin ku celceli waxaad arkaysaa adigoo iyaga la'aantooda aan waxba qabanba oo aaway buugii aaway journalkii daawacsanaa aaway qoraalkii adigoo dhahayaad arkaysaa marka aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga bahda birlab افكس